Hego Forum waa magac ay ku midoobeen koox dhalinyaro aqoon-yahano ah oo ku nool magaalada Cadaado kuwaas oo sameeya fagaaradoodyo ay dadweynuhu isku dhaafsadaan afkaaro kala duwan oo ku saabsan horumarinta bulshada, dhaqanka iyo wixii la mid ah. Kulan lagu soo bandhigayay halbeega Hego Forum ayaa lagu qabtay magaalada Cadaado waxayna dhalinyaradu faahfaahin ka bixiyeen muhiimadda uu bulshada u leeyahay fagaaraha ay sameeyeen ee Hego Forum. sidoo hore ugu sheegay waxaa jiri doonta laba habeen waxaanu kaga hadli doonaa barnaamijkeena muwaadiniinta la xiriirta dhanka nolosha iyo horumarka haddii ahaan lahayd caqabad ugu korinayo iyo haddii ahaan lahayd mowduuc kale ugu tixgelinayo. Labada dhinac ku noolnahay waa very critical place oo crisis badan ka jiro, tusaalahan abaaraha oo kale sidii looga bixi lahaa in durable solutions kooda laga hadlo kale midna ana xal waar sidii lagu keen lahaa. Waayo hadda waxaan haysto waxa waa abaara ka jira dalkii dheeraadayna marka in macnaha waxyaabaha laga hadlayo laga dhigo kuwa waaqic ah si macnaha ay u sameeyaan macna fara badan. dadka hadda dhashay miyiga dhaqankii waxa laga yaabaa in lagu soo daro hal xiraad aan ilaa kulli oo dadka isweydiiyo xataa gabdhaha hore u sheegay waxaa yidhi maxaa lagu furaa xiraadaha maskaxdaada furmayso mid kale waxa kaloo taas ziyaado ah in qofka wuxuu calooshiisa ku jira meeshan keeno waxaa yeelay waxaan dhahaa markaan ardooda hadlayo waryahan hadal haddii kale hadalka calooshu kale maaragtay xanuun kugu reebaya waxaa laga yaabaa in su-aal ku weydiiyo ardayga aad u fasaxin waa dhibaato inay joogteeyaan barnaamijkan waa waxgal ayuu noo yahay waxaana la qabaa aaraada macalinka iyo ustaad wehliye ayaan la qabaa in ay mawduucyada ay noo soo gudbiyaan si aan nooga soo diyaari su-aalaha sitimarkaana kaga sii wada laakiin mid baan sheegaya aqoon kororsi kan maaha inaa intaa ku koobtaan coach life wax la yirahdo jiro motivation oo nolosha yani dhiirigelinaya dhalinyarada iyagana kusoo kordhisan aqoon kula iyada ku koobnaan. Hego Forum ayaa waxaa aad u soo dhaweeyay in badan oo ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Cadaado kuwaas oo ku tilmaamay in fagaaradoodayada noocan oo kale ah ay ka mid yihiin meelaha ugu habboon ee bulshadu ay isku weydaarsan karto talooyinka wanaagsan ee waxtarka u leh dalka iyo dadka. Cabdi Xasan Awowe, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Cadaado.